Ricardo Maradona oo ah mas'uul ka tirsan shirkadda SBA oo laga leeyahay waddanka Talyaaniga isla markaana qalabkan ayaa ku dhiirigeliyay bulshada Soomaaliyeed inay u adeegaan qarankooda. waxa uu sheegay in qalabkan uu yahay mid casri ah oo loogu talagalay in lagu maamulo hawada waddanka Soomaaliya. Dell'invito suo qua a Mogadiscio e quindi a tutti voi vi ringrazio della possibilità di aver potuto parlare. Waa mahadsantihiin walaal Soomaalinimona waa lagu dhalay hooyadayda Soomaali ah Talyaani waa aabahayga maanta waan faraxsanahay oo inta ka shaqeeyo oo abtiyaasheena u shaqeeyo oo waddanka u shaqeeyo oo Soomaalida ku soo noqoto wixii hore ahayd. Maareeyaha hay'adda duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Mudane Yuusuf Jaale oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in qalabkan si degdeg ah loo rakibayo isla markaana ay ku shaqayn doonaan howlwadeennada hadda ka howlgala magaalada Nairobi ee waddanka Kenya kuwaas oo hadda loo soo wareejinayo xafiiskan cusub ee laga hirgelinayo magaalada Muqdisho. waxaan ku kalsoonahay shaqaalaha jooga Nairobi kartidooda iyo tayadooda muddo dhowna insha Allah soo gabagabayn doono qaabkii halkan ay ugu soo guuri lahaayeen iyagoo deegaamo iyo tasiilaad waxay ku shaqayn lahaayeen ay wasaaradda runtii aad isaga xil saartay goordhowna ay dhici doonto haddii ilaahay yidhaahdo ficilo ku saabsan qaabkii loo dejin lahaa ay soo bixi doonaan insha Allah. ugu dambeyntii waxaa kulanka soo gunaanaday wasiirka gaadiidka iyo duulista Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad isaga oo ka hadlay ahamiyadda qalabkan uu u leeyahay Soomaaliya isaga oo meesha ka saaray warar ku tirikuteen ah oo sheegaya in qalabkan la xaday hase yeeshee uu yahay qalabkii ay soo iibsatay dowladda Soomaaliya isla markaana si rasmi ah hadda loogu rakibayo garoonka diyaaradaha aadan cadde. maanta waxaa farxad dhammaanteen inoo ah in qalabkii lagu maamuli lahaa saada ee hawada Soomaaliya in maanta hortiina lagu furi doono haddii Ilaahay ka raali noqdo oo marqaati ka noqon doontiin haddii Ilaahay ka raali noqdo. muddo badan waan maqalay hawada waa la soo celiyay dadka marka shaki badan ayaa galay sano kasta waxaana la yiraahdaa hawada ayaa la soo celiyay. maanta waxaan idin tusi doonaa qalabkii oo diyaar ah. qalabkani wuxuu yaalay halkan aad arkaysiin hadda konteenarada ku jira ilaa 9 bilood wuxuuna u yaalay qalabkaasi oo meesha ugu xayirnaa khilaaf ka dhaxeeyay shirkadda ama hay'adda maamulaysa hawada Soomaaliya iyo dawladda. waxaa marka aan u mahad celinayaa wasiirkii hore wasaaradda iyo ambassadorkii hore Kenya inoo fadhiyay Ali Jaamac Jangali iyo Jamaal oo noo fadhiyay Kenya iyo dhammaan intii la soo shaqeysay hay'adda iyo wasaaradda intaba ah iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaan la soo shaqeysay in konteenaradaasi ay noo yimaadaan halkan la keenay. qalabkan oo ah mid casri ah isla markaana ku shaqaynaya habka dijitaalka ayaa waxaa xariga ka jaray wasiirka gaadiidka iyo duulista Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Salaad waxaana mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ee kulankaasi ka hadashay ay sheegeen in muddo 9 cisho kadib xafiiska laga kontaroolayo hawada Soomaaliya uu si buuxda ugu shaqayn doono magaalada Muqdisho. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ugu horeyn salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka waxaana kadib uu xariga ka jaray xafiiska maamulka hawada Soomaaliya oo 22 sano kadib dawladdu ay la soo wareegtay. madaxweyne Farmaajo ayaa kormeeray qalabka iyo xiriirka lagu hubin doono diyaaradaha soo galaya Soomaaliya oo dawladdu ay sheegtay inuu yahay qalab aad casri u ah. munaasabadda daahfurka maamulka hawada Soomaaliya waxaa ka qayb galay xubno ka socday golayaasha dawladda, fanaaniinta qaranka, madaxda hay'adda ECAO ee qaramada midoobay iyo marti sharaf kale. xubnihii munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf waxaana hadalkiisa uu ku sheegay in qayb ka mid ah qaranka Soomaaliya uu dhismay mar haddii Soomaaliya ay la soo wareegtay maamulka hawada waxaana uu ku baaqay in tallaabada xigta ee la qaadayo ay noqoto in duulimaadkii diyaaraddii Soomaali Airlines la soo celiyo.
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed cabdulaahi oomar oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in soo wareejinta maamulka hawada soomaaliya aysan cayaar ku imaan waxaana uu mahad celiyey wasiiradii dowladihii ka horreeyay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo kuwaas oo uu sheegay in wax badan ay ku tareen barnaamijkan maanta hirgalay. waxaan rabaa oo kale inaan xaqiijiyo maanta qalabkii loo baahnaa in laga maamulo hawada Soomaaliya halkaas ayuu ku jiraa isaga oo secure waana diyaar madaxweynaheena ayaa marqaati ka ahaa oo la hadlayay diyaaradaha maanta waxaa kale oo rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo shaqaalihii hay'adda duulista saadaasha hawada inta joogta inta haduu shaqeysa ay kaawa oo noqon doonto shaqaalaha hay'adda meeshii ay degi lahaayeen iyo wixii ay cuni lahaayeen iyo socodkooda oo idil waa inoo diyaar haduu Ilaahay ka raali noqdo maanta wixii ka bilowdo hawadu halkan waa laga maamuli karaa bishan iyo bisha soo socotay waxaan ku jireynaa haduu Ilaahay ka raali noqdo innaga iyo Nairobi inaan isla shaqeyno. madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gabagabadii xafladda sheegay in mar haddii maamulka hawada Soomaaliya la soo wareejiyo ay xigi doonto maamulka badda kan xuduudaha bariga si qaranka uu sii dhismo. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in qalabka lagu hagi doono maamulka hawada uu ka fiican yahay midka ay isticmaalaan dowladaha qaar ee Afrika. dadka gadaasheeda taagan waa dadkii 27 sano ugu dambeysay soo maamulayay hawadeena soo maamulayay oo ka maamulayay Nairobi haddana u soo wareegay magaalada madaxdii Soomaaliya Muqdisho haystana qalabkii loogu talagalay oo waliba ka casrisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeena runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyay waxay caddaatay in aan u diyaarsanahay kaliya aqoon ahaan maahe xitaa qalab ahaan inaan ka horeyno wadamo badan oo Afrikaan ah waxay tan qayb ka tahay dadaalka ay dawladdan ay waday 9 bilood ugu dambeysay oo runtii aan gelinay juhdi weyn iyo shaqo badan iyo waqti badan aan gelinay sidii aan ummadda Soomaaliyeed aan mas'uulka ka nahay aan ugu adeegi lahayn. waxaan leeyahay nasiib darro waxaan cadeynayaa inaan hawo la wareejin jirin hawo cid lagu wareeji ay ka toos wala xiriir karaysan idinku waan soo wada waan ku dhameynayaa Montreal iyo Nairobi wala xiriir karaysan ay ka gacanta ku hayso mandate-keedu yahay inay maamusho marka runtii taa horaan u cadeeyay wali ilaa hadda qalab shaqeynaya oo la geeyay Muqdisho oo la isla qaatay oo hawada lagu hago ama lagu maamulaa ma jirto ma inta qalabkii la soo bandhigay jaraa'idada qaar soo qoreen ee lahaayeen qalab kamid ah qalabkii hawada lagu maamulayay meteorology-ga iyo aviation-kuna waa laba shay oo kala duwan wixii dadku wadaan oo aqoon u lahayn cidii mas'uuliyadda qaranka u xil saarayna aanay dhageysanahayn warka meel kale lagu qorana soo qaadanayaan haddii warka anagu aanu sheegaynaa been noqdo warka cid kale oo Soomaaliyeedna raacinaysa warkeeduna run noqdo ay saxaafadda soo qaadato waxaan leeyahay waa ayaan darro waana waxa weeye waa taariikh xun waxaan jeclahay inaan xaqiijiyo inaan cid hawada lagu wareejiyay jirin hawadana laga maamulo ilaa hadda Nairobi qalabka loo rakibay maalintii dawladda laga sheekeynay dadku ay u haysteen hawada in diyaarada lagu maamulaa muu ahayn waxa meteorology-ga difiskii Muqdisho lagu rakibay kuwoodii oo la midana waxaan ku rakibaynaa Hargeysa wiiga dhawaan rakibaynaa marka waxa la sameeyaa
seeskii baa loo samaynayaa anteenooyinkii iyo wixii iyo dhiishashka halkay ku fadhiisan lahaayeen marka wax weeye waa saadaasha hawada maaha horta waxa wanaagsan dee hadallada suuqa iyo muxuu ahaa dacaayadaha raqiiska iyo dadka muxuu ahaayey waxaas dee qiimeyn weyn male arrintani arrin duugowday oo waqti foga ma ahayn arrintaasi waxa weeyaan way caddahay taariikh cad bay hawada somaliland iyo hawadii somaliland iyo soomaaliyaba ay leedaho soo martay ilaa iyo markii go'aankii qaramada midoobay ee dr butros qaali xogeeyaha guud ahaa ee hawada loo wareejiyey muxuu ahaa ekaayo ee mashruuca kakis loo odhan jiray 1996 la abuuray UNDP-na ay mustabeedka u ahayd bayskiisuna Nairobi ahayd FAF-kii Soomaaliyana ay iyagu maamulayeen ilaa xilligaa iyo xilligaa waxay leedahay taariikh cad oo aan been laga sheegi karin oo meel walba militskeeda yaalaan oo bayjadka waaweyne dowladihiina dhexdhexaadinaya Turkiga wasaaradda arrimaha dibadda ay ku jiraan muxuu ahaayey heshiisyadii la galay oo ay qaramada midoobay hayso wixii lagu wada hadlay iyo wixii la isku afgaran waayay waxaasoo dhan taariikh aan dadka been loo sheegi karin lana camayn karin muxuu ahaayey barahan bulshada ee iska soo kordhiya caytanka iyo dharwaqa ma xaqiiqada kama tarjumayaan arrinta hawada dowladdii axmed siinaayo waxa weeyaan wada hadal bay bilowday soomaaliya iyo somaliland golayaasha sharci dejintay marisay istanbul 1 iyo istanbul 2 iyo baa la isugu tegey xubno wasiiraa oo maanta raggii wada nool yahay baa muxuu ahaa hogaaminaya wixii kulanadaa ka soo baxayna waa waxad hawo xukuumaddii axmed siinaayo cabdijabaarow ay wareejisayna ma jiro hawo aan anigu wareejiyeyna oo bixiyo cadow siiyeyna ma jiro hawo nin kaloo wasiiri wareejiyeyna ma jiro waxa weeyaan wafdiyadii go'aamadii ay soo saareen waa hawada si weyn baan uga warrami doonaa ummadda shacbiga somaliland horteeda kaga warrami doonaa midhanimaan qaban cunin ma qabtaan xariir baan ka ahay cid kaloo aan anigu maanta toosh ku ifinayo leeyahay hebel baa iibsada war lama kala iibsado masiirada iyo hawooyinka lama kala iibsado waa laynaga xoogay xukuumadda axmed siyaayana lagama xoogay taariikhda been lagama sheego waxa